ubadkaaga mar ayuu hiilo kaaga baahan yahay nin ayaa wiil u dhashay markaasuu u tagay oday xigmad badan wuxuuna ku yidhi wiil ayaa ii dhashay waxaana kaa rabaa inaad ii sheegto habka ugu wanaagsan ee aan u tarbiyan karo odaygii xigmadda badnaa ayaa ugu jawaabay waan ka xumahay waa goor dambe hadda maaha inaad ii timaado ee waxaa loo baahnaa inaad ii timaadid markaad guursanayso wiilka hooyadiisa oo wakhtigaas ayay bilaabmataa tarbiyada carruurta odaygii asagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu yidhi rag iyo dumarba waa inuu qofka marka hore xushaa oo iska hubiyaa qofka uu guursanayo maxaa yeelay waa arrin mustaqbal ah mustaqbalkuna waa inuu ku salaysan yahay kheyr iyo wanaag taasi ubadkana kaga dayanayo wanaagga waalidka ka muuqdo ugu dambeyntii muhiim ma ahan lacag qurux iyo nasabnimo balse ka fakar hooyada tarbiyaysa ubadkaaga ama ka fikir aabaha uu ku dayan doono ubadkaaga haddaad rabtid inay ubadkaaga baari kuu noqdaan u door hooyo wanaagsan haddii aad rabtid inay ubadkaaga baari kuu noqdaan u door aabbo wanaagsan